بسم الله الرحمن الرحيم وأنا خالد عبد جهنو هذه أدبان السلام يا waxaynu maanta bilaabnaa casharkeennii shanaad ee ku saabsan kooraskan short course-ka aan ku qaadanay ee principle of accounting 1 ah kaasoo aynu maanta kaga hadli doono casharkeen how and its fine events sidee baa dhacdooyinka loo cadeynayaa ama loo aqoonsanayaa and recording transactions ee dhacdooyinka businesska sidee baana loo record garanayaa sidee baana loo aqoonsanayaa halkan waxaan ku arkaynaa ninbaa businesska uu furay dhacdooyinkiisii baynu diiwaangelinaynaa xisaab xidhka bisha ugu dambeysana waan sameynaynaa bisha November bay ku jiray businesskaasi bisha xisaab xidhkeedii baan sameynaynaa businesskana way bilaabanaa shaqooyinkiisa waan diiwaangelinaynaa sida ay wada dhacayaan oo dhan ninka la dhahdo Cumar was experienced auto mechanic started a business to be known as Omar Auto Service ninka la dhahdo Cumar waa nin khabiir ku ah xagga makaanikada waxaana uu furtay business la dhahdo Omar Auto Service dabeedna businesska transactions oo kala dhigan November transactions kiisii baa dhacay intii lagu jiray November 2011 was a fellowness sidaas oo socotay ayuu dhacday marka November 1 Umar businesskii uu bilaabay depositing wuxuu sameeyay deposit 80,000 oo statement kuna waxaana u dhigtay banka account-kan la dhahdo Omar Auto Service November 3 purchased land for 52,000 labiya konton kun ayuu ku iibsaday dhul buu ku iibsaday buying cash lacagtiina uu iska wada bixiyay labada dhacdooyin bayna eegnaa sida loo diiwaangelinayo iyo halka laga bilaabayo marka koowaad waxaan sameynaa journalize waxa dhacdo dhacdooyinkii oo dhan bay ku wada goranaa halkan waxa ka muuqata date-kii November 1 ilaa November 30 in 2011 maalintii koowaad November koodii cash in a bank cash buu banka dhigtay statement kuna capitalkiisii waa statement kun markaa lacagta uu hantida uu raasamaalka haysto waa statement kun November 3 buu laan iibsaday dhul buu iibsaday dhulku waa asset-ku way korodhay waxay ka kordhaysaa debitka haddii asset-ku yaraatana waxaad ku qoraysaa credit-ka imika balay qaybtii laanka asset-ka ayaa kor u kacday xagga wuxuu geeyay debitka cash-kii laakiin gacanta ku haystay way yaraatay cash-ku haddii ay yaraato waa asset-kaagii asset-ku haddii ay yaraatana halkay ka yaraanaysaa inay credit-kaad geynaysaa markaas double entry baa la dhahdaa waxaa la doonayaa labada balance inay isla eegaadaan haddii dhacdada kaliya ay isku leegaan waayaana oo qayb ahaanta halka gashan qaybteeda kale waa inay mar dambe ay gashaa xaggeegun marka land waa asset-ku wuxuu ka kordhayaa debitka cash waa asset-ku miyuu yaraaday uu yaraaday waxaad ka yaraynaysaa credit-ka marka chart of accounts-ka aan soo dhiganay lixda ahaa ayaa dhacdo kasta oo businesska gudihiisa ka dhacda lixda mid unbay soo hoosgelaya lixda mid kastana waa inaad garataa halku kordhayay halku ka yaraanayo dhacdada isla markaa la joogana waa inaad garataa kale miyuu kordhay mise uu yaraaday imika November 5 building dhisme ayuu iibsaday baa la yidhaahdaa halkan general journal-ka nooga muuqataa weliba aan tagno halka ay caadi ugu qoran tahay statement-ka caadiga November 5 purchased wuxuu iibsaday a building kelmadda purchased la aragto uu iibsaday weeye for 30,000 waxaanu ku iibsaday 36,000 buying 6,000 6,000 uu bixiyay marka 36,000 buu ku iibsaday 6,000 uu bixiyay 30,000 baa ku haraya 30,000 ku haraya waynu diiwaangelin doonaa laakiin imika aynu eegno sidaynu u diiwaangelino dhacday in a cash waxa lagu yiri 6,000 cash buu bixiyay and should not payable for the remaining 30,000 30,000 ee ku harayna wuxuu ku bixin doonaa wax la yiraahdo not payable waxa weeye waa deyn warqad wadata oo saxiix la kala qaatay oo in uu lacagta iska bixin doono iyo waqtigii uu iska bixin lahaa iyo date-kii iyo wax kasta wadata note bay wadataa waa deyn note wadata note-kaas oo warqad ku cad oo nootaysan sharciis markaas 30,000 inuu xilli dambe ayuu qabtay oo bixinayo 6,000 uu bixiyay 30,000 waa laga siiyay building-ka dhismaha balan eegno sida aynu u diiwaangelinayno black building buu iibsaday waa dhismuhu waa asset-kii uu kordhay halkuu ka kordhayaa wuxuu ka kordhayaa debitka cash-kiisii maxaa ku dhacay cash-kiisii way yaraatay halkeebay markaa cash ka yaraanaysaa maadaama ay asset tahay waxa ka yaraanaysaa credit-ka not payable ayuu inta kale ku bixinayaa not payable waa deyntu liability bay ahaan jirtay liability-gaasi markay korodho halkan baad ku qoraysaa debitka markay korodho waxaad ku qoraysaa credit-ka imika deyn baa ku korodho deyn buu galay ninkaas maadaama deyn galay deyn baa ku korodhay oo deyn baa lagu leeyahay oo tusaale ahaan haddii uu deyn kale galo haddana iyadana halkan baa lagu qorayaa sababtoo deyntiiba markasta kusii kordhaysa haddii uu iska bixiyana waxaa lagu qorayaa debitka
marka chart of accounts bay kamid tahay waa liability gaasi inta lagu leeyahay 30,000 weeyaan 30,000 credit ka ayaa lagu qorayaa waayahay dhacdada ku xigta inuu tagno dhacdada ku xigta waxay dhacday November 17 17 November bay dhacday purchased tools wuxuu iibsaday qalab and equipment aduu qalab iibsaday on account book iibsaday on account hadda aragto waa deyn isaga deyn ku soo qaatay deyn baa lagu leeyahay hadanka deyn kale ayuu galay 13,800 ayuu ku soo iibsaday qalab laakiin deyn bay wali ku tahay iskama bixin lacagta sida loo record gareynayaan eegno November 17 tools and equipment bad ku qoraysaa tools and equipment kaasi waa asset hantidiisii bay ku soo biireen qalabka uu soo iibsaday sida dhulka iyo ugu soo biirayeen iyo dhismuhuba waxa weeyaan 13,800 weeyaan toolska ku soo kordhay account payable weeye waxay kaga duwan tahay note payable-kii labaduba waa liability laakiin waxay ku kala duwan yihiin midna note baa la socota oo wuxuu ballan qaaday xilliga bixinaya oo warqad saxiixan oo nootaya oo waqti leh oo markhaatiyaal leh ayaa la soo raaciyay account payable kuna waxa weeye isagu warqad sharciyeysan maaha wadiimaha hadii sharciga loo kala qaato hadhow baan soo bixin doonaa bishta ma soo bixin doonaa buu leeyahay marka 13,800 weey oo liability-ga halkay ka kordhisay credit-ka ka kordhisay haddii aad liabilities ka bixisana xagad ku qoraysaa debit-ka sababtoo way ka yaraanaysaa marka laakiin marka way nagu kordhay 13,800 waxaan ku qoraynaa credit-ka dhacdada ku xigta ayaynu tagi doonaa waana dhacdadii aynu maanta ku soo gabagabeynay November 20 weeyaan November 20 wuxuu sameeyay Sol wuxuu iibiyay some of the tools as a 1,800 ayuu siiyay toolskii buu qayb kamid ah iibiyay waxaanu siiyay 1,800 dad collectible kuwaas oo lagu soo ururin doono with 45 days marka halka waxa kaaga muuqata uu iibiyay laakiin maadaama uu iibiyay wax cash ma receive karayn ama cash ma qabsanin laakiin markuu iibiyay waxa laga soo ururinayaa dadka 45 cisho gudahood 45 cisho gudahood maadaama laga soo ururinayo waa deyntaas inaga soo maqnaa inaga ayay naga maqan tahay marka maadaama inaga maqan tahay deynta inaga maqan magac bay leedahay laakiin deyntaas haddii inaga maqan tahay inaga ayaa iska leh laakiin waa asset-keeni marka halkan baynu ka eegnaa sidee baynu diiwaangelinaa waxaanu diiwaangelinaa November 20 account receivable waa account aad heli doonto halka ka hore ka ahaa account payable kugu ah inaad bixisaa qasab tahay kana waa account aad heli doonto maadaama account-ka aad lacag ku heli doonto lacagtaas waa mid ka maqan waxaana ahayd 1,800 alaab la siiyay revenue way waa dakhli ku soo galay laakiin aanad wali receive karaynin cash-kiisii kuna iman doonto insha Allah marka taas waa asset-kaaga waxaad ku qoraysaa oo ka kordhi jiray debit-ka revenue waa chart of accounts kamid yahay waa dakhli ku soo gala halkuu ku kordhiyaa credit-ka uu kordhay maadaama aad xiibsay dakhligaaga haddii account receivable kaas deyntaas haddii la bixiyo waxay ka yaraanaysaa ilaa way yaraatay haddii uu qofkii soo bixiyo marka credit-kaad ku qoraysaa haddii ay badato qof kale deyn aad siisan haddana debit-kumbaad ku qoraysaa insha Allah maanta casharkeena intaasan ku joojinayaa waxaan filayaa waan badiyay maalinta dambe dhacdada ku sii xigta ayaan bilaabi doonaa waa 25 November general journal-ka ayaan dhamayn doonaa insha Allah dabeedna waxaan tegi doonaa stepska kale ee la sii weydiiyay halkan la inagu weydiiyay ta koobaad waxa la inagu yiri journalizing this above transactions on general journal kaas ku dhex jirnaa maalinta dambe waxaan tegi doonaa post to t account baan marin doonaa haddana trial balance haddana statements baan soo saaranaa xisaab xidhka ayaynu sidaa ku dhamaynaa insha Allah xisaab xidhka bisha November ee business-kaas uu shaqeynay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.